cabdicasiis xasan laftagareen waa madaxweynaha labaad ee koonfurta. waxaa la doortay hogaamiyii isbeddelka ee u qalmay xilka iskudubradihii udubadii dawladda soo dhoweeyihii dhallinyarada iyo haweenka. madaxweynaha dawladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa sanadkiisii ugu horreeyey wuxuu diiradda saaray isutumidda dadka iyo weliba dhayidda qalbiyada shucuubta koonfur galbeed iyadoo loo marayo hannaanka dhaqanka iyo heerbeegtida soomaaliyeed taasoo hirgashay. safaradii nabadda ayaa bilowday oo lagu socdaalayey degmooyinka sida xudur waajid ceelbirde baraabe marka diinsoor berdaale iyo deegaano kale. goob walba uu saanta dhigay madaxweyne cabdicasiis socdaalkiisa safarka nabadda bulsho ayaa soo dhowaynaysay sida marka oo si diiran loogu soo dhoweeyey isagoo ka jeediyey khudbad sooyaalka taariikhdiisa baaldahaba ka gashay. xoojinta xidhiirka caalamiga ayuu diiradda saaray madaxweynaha sanadkii ugu horreeyey ee uu xafiiska la wareegay. waxaa la gaaray guulo la taaban karo oo dhanka amniga ah. waxaa la xoreeyey degmooyin iyo deegaano. waxaa la joogteeyey kulamo la isku weedaarsanayo xoojinta wadashaqaynta amniga. sidoo kalena dadaal dheer ayaa la geliyey kor u qaadista wacyigelinta bulshada oo sannadihii iyo muddooyinkii la soo dhaafay si hufan ula shaqaynayay ciidamada howlgalka wada. waxa uu dhisay golo wasiiro oo tayo leh oo u badnaa dhallinyaro. sanadkii labaad madaxweyne cabdicasiis laftagareen sanadkii labaad oo uu xafiiska joogay wuxuu gaaray guulo loo aayay. siyaasad deggan ayuu madaxweyne laftagareen ku guulaystay. baarlamaanka dawladda koonfur galbeed oo ahaa 149 mudane ayuu madaxweynaha ka dhigay 95 mudane oo ah sida dastuurka ku qoran. waafajintan dastuurka tirada xildhibaanada iyo iswaafajinta mudaxilaadka madaxweynaha iyo golaha wakiilada waxay ka markhaati kacisay inuu yahay hogaamiyihii isbeddelka iyo inuu ku adag yahay ku dhaqanka iyo hirgelinta dastuurka. dhanka mashaariicda sanadkii labaad waxaa xarigga laga jaray mashaariic waaweyn oo dan u ah shacabka koonfur galbeed. sannaddii labaad mashaariicda fushay waxaa ka mid ah degmada baraabe ee caasimadda dawladda koonfur galbeed oo laga dhisay garoon diyaaradeed. xarunta gobolka bokool ee xudur ayaa markii ugu horraysay laga dhisay madaxtooyo martigelisa wufuudda kala duwan ee gaarta magaaladaas. mashruuca biyoole oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan 32,000 oo qof. mashruuca baxnaano oo kumannaan dad danyar ay ka faa'iidaysteen. xarumo dawladeed iyo kuwo bulshada loogu adeegayo oo dib u dayactir iyo dib u dhis horle lagu sameeyey. amniga ayuu siiyey madaxweyne laftagareen ahmiyad weyn sanadkiisii labaad. waxaa la fuliyey howlgallo lagu xoraynayey deegaano ka tirsan koonfur galbeed sida kuntunwaare iyo deegaano badan oo gacanta dawladda ku soo laabtay. deegaanada la xoreeyey waxaa ka mid ah janaale oo loo dhisay maamul dadka deegaanka ay leeyihiin. madaxweyne cabdicasiis ayaa dadaal badan ku bixiyey sidii kor loogu qaadi lahaa awoodda iyo haybadda ciidamada koonfur galbeed. adeegyada suuragalay waxaa ka mid ah koonfur galbeed dhexdeeda laga hirgeliyey xarumo muwaadiniinta ay ka qaataan baasaboorada iyadoo dhammaan 3 gobol iyo degmooyinkooda laga furay xarumo laanta socdaalka iyo jinsiyadda oo fududeeyey in shacabka ay ka qaataan baasaboorada dalka. mashaariicdii hirgashay waxaa kaloo ka mid ah sannaddii labaad dhismaha xarumo caafimaad iyo dib u dayactir lagu sameeyey qaar ka mid ah cisbitaallada degmada baydhabo oo hab casriya loo dhisay. cisbitaalka guud ee gobolka baay oo ballaarin lagu sameeyey iyo qalabayn. dugsiga farsamada gacanta oo ka kooban dhowr qaybood ayaa laga dhisay xarumaha waxbarasho oo dawladda hirgelisay kuwaas oo shaqo abuur loogu samaynayo dhallinyarada. madaxweynaha ka sokow dib u heshiisiinta iyo horumarada bulshada ka sameeyey koonfur galbeed waxaa u dheereed kaalinta muuqata oo mar kasta uu ka qaadanayay arrimaha siyaasadda iyo xalintooda. wuxuu lahaa madaxweynaha fikirkii ahaa in la isugu yimaado shirkii dhuusmareeb 1 2 iyo 3 kaas oo ay ka soo baxeen natiijooyin ah in dalka doorasho uu aado. sanadkii saddexaad waxaa la gaaray guulo kale oo dhan walba leh oo dhumucdooda lahaa. halka sannaddii labaad mashaariicda hirgashay ay ka ballaarnayd tiradii hore. waxaa soo biiray degmooyin kale oo ka mida gobollada koonfur galbeed oo mashaariic muuqda ka hirgashay. ceelberde afgooye iyo diinsoor waa degmooyinka soo biiray ee dawladda ka hirgelisay cisbitaallo waaweyn oo wax loogu qabanayo faayadhowrka bulshada lagana hirgeliyey shaqaale caafimaad. halka baydhabo iyo xudurna ay ka kordheen cisbitaallo hor leh. waxbarashada ayaa heegada martay. iskuulo hor leh oo hoose dhexe iyo sareba leh ayaa la dhisay. ceelberde baraabe awdheegle iyo baydhabo ayaa laga dhisay iskuulladaas. qaar kaloo badan dayactir ayaa lagu sameeyey. sanadkii saddexaad ee dawladda madaxweyne cabdicasiis ayaa 10 arday oo ka mid ah ardayda koonfur galbeed
kaalmo hore ayay ka galeen imtixaanka guud ee dalka qiimaynta iskuullada soddonka ugu horreeya ayay koonfur galbeed iskuulladeeda ay qayb ka ahaayeen biyaha waa noolaha aan ka maarmin sannadkii saddexaad ee dawladda koonfur galbeed biyaha waxay ka dhigtay ahmiyadda koowaad boqolaal ceelal riiga ayaa laga qoday koonfur galbeed biyaha iyo xoolaha oo ah halbowlaha nolosha bulshada waxaa taageero maalgelina loo sameeyey beeralayda iyo xoolodhaqatada miy iyo magaalaba xoolaha waa la daaweeyey waxaa laga fikiray badqabkooda beerahana iskaashatooyin ayaa loo qalabeeyey wax soo saarka beeraha ayaa batay dhismaha garoonka baydhabo ayaa la ballaariyey iyo ranweyga sidoo kale magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool ayaa markii ugu horraysay taariikhda tan iyo burburkii loo sameeyey tiramanal waxay ahayd tallaabo bulshada iyo maamulka gobolka bokool iyo kan degmada xudur ay kaalin ka qaateen garsoorka iyo caddaaladda ayaa la tayeeyey sannaddii saddexaad isbeddelna lagu sameeyey waxaa la dhisay guddiga adeegga garsoorka koonfur galbeed waxaa soo noqday caddaaladdii maxkamadaha ka muuqan jirtay madaxweynaha oo wax ka qabashada amniga mar kasta ahmiyadda koowaad u lahayd ayaa sannaddii saddexaad wuxuu muujiyey go'aamintiisa ku aaddan amniga dufcado kala duwan oo isugu jira SNA iyo koonfur galbeed ayuu tababaro u furay una xidhay kana dhigtay dawladda koonfur galbeed mid haysata cudud ciidan oo ku filan difaaca dawladda iyo dadka arrimaha bini'aadanimada ayuu wax weyn uu ka qabtay isagoo ku soo jeediyey indhaha caalamka dhibaatooyinkii haysatay bulshadiisa gaar ahaan degmooyinka xudur waajid diinsoor iyo qansax dheere oo ay ahaayeen meel go'doonsan oo xaalado bani'aadanimo ay ka taagnaayeen baaqiisii jawaabteeda ma daahin shacab dawlad iyo caalamkaba waa laga wada jawaabay barakicintii lagu sameeyey bulshada koonfur galbeed ee ka soo jeeday laascaanood madaxweyne abdicasiis wuu ka dhiidhiyey guddi degdeg ah ayuu magacaabay waxay tageen guddigaas gaalkacyo iyo garoowe waxay diyaarado iyo gaadiidba ku soo daabuleen dadkii laga soo barakiciyey dhammaan waxaa loo sameeyey soo dhowayn gargaar degdeg ah iyo dib u dejin madaxweyne abdicasiis ayaa intii lagu guda jiray waxqabadka sannadkii saddexaad wuxuu tegey kaduuna oo ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka naijeeriya wuxuu ahaa safar taariikhi ah oo miro dhalay intii isaga iyo wafdigiisa ay joogeen kaduuna wuxuu galay heshiisyo ay ka mid ahaayeen mataanaynta labada dawladood iyo iskaashi sannadkii saddexaad doorashada dalka ayuu hormuud u ahaa markii ay calowday siyaasadda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada midba dhan u istaagay madaxweyne abdicasiis wuxuu ahaa midkii ka gam'i waayey xaaladda cakiran ee siyaasadda dalka wuxuu guntiga dhiisha isaga dhigay inuu isu keeno dhinacyada isdiiddan si danta guud loo gaaro wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo dhammaynta khilaafyadii dawladda federaalka dhexdeeda ka jiray si hoose iyo si koreba wuxuu isku keenay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisii wakhtigaasi maxamed xuseen rooble waxay ahayd mid taariikh ah oo dawladda koonfur galbeed u soo hooyatay kadib wuxuu u gudbay dawlad goboleedyada si toosan iyo si dadban markii uu la hadlay waxay keentay inay qabsoomaan shirarkii u dambeeyey ee lagu meelmariyey heshiisyadii taariikhiga ahaa ee marxaladda adkayd looga gudbay heshiisyada marka ay dhaceen kadib oo bilaabatay is-eegasho bilaabista doorashada madaxweynaha wuxuu ku dhiiraday in magaalooyinka baydhabo iyo baraabe ay ka hirgasho doorashooyinka dalka gaar ahaan aqalka hoose iyo kan sareba meelmaryeyna heshiisyadii ahaa laba magaalo doorasho ay ka dhacdo ilaalinta sharciga heshiis la gaaray fulintiisa madaxweyne abdicasiis xasan maxamed laftagareen waa fuliye ay ka go'an tahay marakhaatina uma baahna qabashadii doorasho laba magaalo waa tusaale kale oo muuqda sannadkii afaraad abaaraha iyo arrimaha bani'aadanimada maadaama dalka iyo dadka ay ku habsadeen abaaro soo noqnoqday 4 xilli oo isxigta waxay dawladda koonfur galbeed ahmiyad gaara ay siisay wax ka qabashada abaaraha iyo gurmudka dadka loo samaynayo haddaba iyadoo laga duulayo baaqa madaxweynaha ayay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dawladda koonfur galbeed waxay u tafaxeedatay fulinta baaqa madaxweynaha waxay dejisay qorshayaal qaarkooda dadka lagu badbaadiyey hay-adaha samafalka iyo UN-ka oo kaashanaya wasaaradda gargaarka iyo xafiiska madaxweynaha waxaa lagu guulaystay in la gaarsiiyo gurmud deeq cunno ah 1,400,000 oo qof oo ku nool deegaanada koonfur galbeed deeqdaasi oo bilo ah gobolka baay dawladda koonfur galbeed waxay gaarsiisay deeq raashin oo gaaraysa 13 diyaaradood oo cunno daruuri ah
gobolka Bokool waxaa la gaarsiiyey deeq raashin oo gaaraysa 14 diyaaradood oo cunno daruuri ah gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sidoo kale la gaarsiiyey 147.5 metrik tan oo cunno ah waxaa intaas barbar socday shirar joogto ah oo arrimaha bani'aadanimada looga hadlayay oo madaxtooyada ka dhacayay baaqa madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed ee arrimaha abaaraha waxaa ka jawaabay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmo kooban xafiiska joogay kadib doorashadiisa ku yimid Baydhabo si uu ugu koorgalo baaxadda ay la eg tahay abaarta labada madaxweyne waxay booqdeen xeryaha dadka soo barakacay ay degan yihiin ee duleedyada Baydhabo waxay dhageysteen baahiyaha dadka abaarta saameysay ay qabaan si wada jir ay qayladaan ugu direen caalamka iyagoo ka digaya inay xaaladda ay sii xumaato baaqi labada madaxweyne kadib indhaha caalamka ayaa soo jeestay waxaa si isdaba jooga u soo gaarayay Baydhabo iyo degmooyinka kale ee Koonfur Galbeedba hay'adaha UN-ka NGO-yada caalamiga ah iyo deeq-bixiyaasha kale kuwaasi oo danaynayay dhammaantooda inay wax ka qabtaan abaarta baahsan ee dalka ku dhufatay mashruuca Baxnaano oo ah barnaamij dawladeed oo lagu caawinayo laguna taageerayo dabaqada hoose ee bulshada waxaana ka faa'iideystay qoysas tiradooda gaaraya 26,056 qoys barnaamijka ka soo kabashada aafada ayaxa oo isagana ay ka faa'iideysteen 27,924 qoys mashruuca Sagal oo ah barnaamij lagu caawinayo bulshada qeybaheeda nugul waxaana ka faa'iideystay wajiyadii koobaad iyo labaad 3,309 qoys oo isugu jiray qeybaha bulshada dadaalkii gurmudka iyo baaqyadii isdabajooga ahaa ee madaxweyne Abdicasiis Laftagareen uu ka jeediyey meel kasta oo madal ah waxay dhintay baahidii dadka waxqabadkaasi waxaa bogaadiyey bulshadii loo samafaray adeega dawladda iyo maamul daadejinta caafimaadka oo ah udubdhaxaadka nolosha aadmiga ayaa dawladda Koonfur Galbeed waxay ku guulaysatay inay wax ka qabato sanadkan afaraad waxaana taabagalay oo fulay dawladda waxay dhistay sidoo kale la qalabeeyay xarunta shaybaarka Koonfur Galbeed oo qaban doona adeegyada baarista cudurrada waxaa loo dhameystiray qalabyada muhiimka ah ee baarista cudurrada waxaa loo tababaray shaqaale xirfadlayaal ah oo ka howlgali doona xarunta iyadoo aan ognahay marka loo baahdo baarista cudurrada loo qaadi jiray shaybaarka qaranka oo ku yaala magaalada Muqdisho dawladda Koonfur Galbeed waxay dhistay 2 warshad oo soo saarta oksijiinta waxaana laga dhisay cisbitaalka guud ee gobolka Baay iyo xarunta TB-da ee magaalada Baydhabo si loogu wada daboolo baahida oksijiinta madaxda wasaaradda caafimaadka oo fulinaya talada madaxweynaha waxay ku guuleysteen inay mashruuca damal caafimaad loo qorsheeyay in uu ka hirgalo 5 gobol oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ay ka heshay 2 gobol oo ka mid ah mashruuca Marwo caafimaad waxaa loo qaatay gabdho shaqaale caafimaad ah oo gaaraya 107 oo ka howlgala degmooyinka Baydhabo Xudur Waajid Baraaba iyo Afgooye waxayna ka shaqaynayaan xog ururin caafimaad wacyigelin iyo xoojinta hanaanka aadida xarumaha caafimaad waxaana sanadkan horteena qorsheeyay wajiga labaad ee mashruucan oo qabsoomi doona isla sanadkan waxaana lagu kordhin doonaa shaqaale caafimaad oo gaaraya 86 gabdhood wasaaradda caafimaadka oo ka duulaysa qorshaha xukuumadda dawladda Koonfur Galbeed waxay sanadkan ku tallaabsatay horumarinta adeegyada caafimaadka waxay dib u dhistay cisbitaalka gobolka Bokool ee Xudur iyadoo sanadkii hore dib u howlgelisay cisbitaalka degmada Baraaba ee caasimadda dawladda Koonfur Galbeed wasaaraddu waxay ka shaqaysay inay hirgeliso xeelada lagula tacaalo cudurrada faafa si bulshada loogu yareeyo dhibaatooyinka iyo halisaha ku yimaada xilliyada cudurrada dilaaco wasaaradda caafimaadka waxay dawooyin muhiim ah iyo waliba aqabyo kale oo caafimaad gaarsiisay 16 degmo ee xorta ah ee 3 gobol ee Koonfur Galbeed waxbarashada iyadoo laga ambaqaadayo dadaaladii sanadii koobaad labaad iyo saddexaad la geliyay dhanka waxbarashada waxay keentay in sanadkan afaraad tirada ardayda iyo tan macallimiinta ay korato waxbarashadii ayaa lagu ballaariyay degmooyinka iyo deegaano hor leh sistamkii waxbarashada ayaa kor loo qaaday tirada ardayda cusub ee dhigata dugsiyada oo aad u korortay ku dhawaad 43,000 oo arday oo cusub ayaa laga diiwaangeliyay sistamka waxbarashada ee loo yaqaano IMIS dhismo cusub iyo dayactir lagu sameeyay 18 dugsi oo ku yaala degmooyinka Marka Baraaba iyo deegaanada Janaale Ceel Jaalle iyo Buufow Bacad dhismaha dugsiga sare ee Badda Baraabe dugsiyo cusub oo laga dhisay degmooyinka Xudur Baydhabo iyo Afgooye shirka horumarinta waxbarashada oo sanadkii labaad la qabtay dhismaha iyo qalabaynta xarunta wasaaradda waxbarashada